بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii barakaysneed oo ramadaan waxaa inoo socday duruus ramadaaniye ah oo bishaan waxaa weeye barakaysan aynu ku qaadanaynay qeybo kala duwan oo bisha maalmaheeda iyo habeenadeeda munaasab u ah aynu soo qaadanaynay. hadda waxaa weeye waxaan soo gaarnay darsigeennii 16aad ayaanu soo gaarnay. darsigeennan 16aad waxau la xiriiri doonaa darsigeennii 15aad oo aanu dhahnay waxaanu ku qaadanaynaa salaatu taraawiix. heerarkii marka salaadaasu ay soo martay ayaanu qaadanaynaa. suma waxaa weeye hadda haatan meesha ay joogto oo waxa weeye salaatu taraawiix sida hadda maaragtay shacaa'irta islaamku ay tahay ayaanu hadda qaadanaynaa oo haddana markaasi waxa weeye aanu maaragtay darsigeennan 16aad ku qaadan doonaa. marka horey waxaan u soo marnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayadoo markaasi salaadii loogaga dayday, laakiin arrintaas arrin la daa'imo aysan ahaynin in ilaahay rasuulkiisa oobsaday. waxaan kaloo hore u soo qaadanay sayd abubakar waqtigiisa saas inay ahaaday, khilaafadii sayd cumar ayadana bilowgeedii inay sidaas aheeday ayaanu maaragtay soo qaadanay. hadda waxaanu qaadan doonaa xadiis laga wariyey abidar saxaabiga la yidhaahdo ayaanu qaadanaynaa oo asaguna waxaa weeye axaadiistaas ka qayba ayaanu qaadanaynaa. xadiiskan marka abudar laga wariyey waxa uu dhahay abudarin alkhafaari saxaabiga la yidhahdo jundub ibnu junaadata weeye. waxa uu dhahay abudar sumnaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama ramadaana falam yaqum binaa shayئa min ashahri xataa baqiya 7 faqaama binaa xataa dahaba hulusu leyli falamaa kaanat الsaadisatu lam yaqum binaa xataa kaanat اlkhaamisatu faqaama binaa xataa dahaba shadru leyli faqultu yaa rasuula اllahi low nafaltanaa qiyaama hadihi leyla faqaala ina الrajula idaa salaa maca alimaami xataa yansarifa xusiba lahu qiyaamu leylati qaala falamaa kaanat الraabicatu lam yaqum falamaa kaanat الhaalisatu jamaca ahlahu wa nisaa'ahu waannaasa faqaama binaa xataa khashiinaa an tafuutana alfalaaxu qultu wama alfalaaxu qaala alsuxuur suma lam yaqum binaa baqiyata shahri rawaahu asxaabu sunan. xadiiskan isagana xadiis dheer weeye. xoogaa adigu xagga zamanka salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu asxaabta la dukaday oo asxaabtu ay ku soo raaceen ayaad u malaysaa in markaasi ay tahay bisha aakhirkeedii ay tahayo cashrul awaakhirka ugu dambeeya inay tahay xadiiskan abudar uu sheegayo. axaadiistii hore oo aynu ku soo qaadanay darsigeennii 15aadne waqti hadda gaara ma uusan tilmaamaynin. xadiiskan abudar waxa uu dhahay nabiga calayhi salaatu salaam ayaan la soonnay bisha ramadaan ayaan rasuulka la soonnay. marka nabigu calayhi salaatu salaam falam yaqum binaa shay-an min ashahri wax markaasi bisha ka mid ah oo nabigu calayhi salaatu salaam uu nala qumay oo salaad noola istaagay ma aysan jirin xataa baqiya 7 intii waxaa weeye bisha 7 ay ka harto oo waxa weeye markaasi waa bishu markay tagto 23 markay tagto weeye bee ka dambeeya. markaas wuxuu dhahay falam yaqum binaa shay-a min ashahri xataa baqiya 7 ilaa markaasi bisha markaasi 7 ay ka harto. 7 marka waxaa weeye waxay ku jirtaa maaragtay cashrul awaakhirka ugu dambeeya. waxaa weeye xataa baqiya ayuu dhahay markaasi intii ay markaasi ka harto bisha markaasi 7 ay ka harto.
xataa baqiya sabcun todoba intay markaasi bisha ka harto todobadaas marka maxay tahay todobadaas waxaa weye markaasi waa todobada markaasi bisha iday ka dhiman tahayo habeenada dhiman weeye lixda iyo markaasi shantuna saas weeye raabicada iyo saalisaduna waa sidaasoo kaleentoodoo inta kaloo bisha ka baaqiga ayaa loola jeedaa markuu leeyahay xataa baqiya sabcun in todoba ay ka harto waa markii markaasi 24 ay tahay halkaas markii la gaaray faqaama binaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa nala qumay waxaa weeye markaas waxay ku aadan tahay bishu markay tahay 24 ay tahay maxaa yeele markii uu yihi xataa baqiya sabcun markaasi haddee bisha todoba hadday ka dhiman tahay 23 ay joogtaa markaas kabacdi ayuu markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam salaad ayuu u kacay xataa dahaba hulusu leyli ilaa habeenkii suluskiisa uu ka tago oo markaasi habeenkii 3 markii loo dhigo dhig ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadana dushinaya marka hadda waxaa weeye waxaa laga wadaa habeenkii markaasi 23 ayay noqonaysaa habeenkii 23 ayay noqonaysaa ama habeenkii 23 markii lasoo dhaafo 24 markaas haddee bishu markaasi 30 ay ku dhammaanayso hadday ku dhammaanayso 29 ay ku dhammaanaysane waxay noqonaysaa habeenkii waxay noqonaysaa 23 weeye kolka markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu nala kacay waxaanu dukanaynaa ayuu dhahay habeenkii inti markaasi suluskiisa ayaa dukanayoo salaadi lagu jiray falamaa kaanat isaadisatu ayuu dhahay haddii la gaaray markaasi habeenkii markaasi oo bisha markaasi ay ka dhiman tahay 6 macnaha waxay noqonaysaa iyaduna 24 ay noqonaysaa falamaa kaanat isaadisatu ayuu lahaa habeenkii bisha ay ka hartay markaasi 6 ay ka hartay lam yaqum binaa nabigu calayhi salaatu wasalaamna lama qumin xataa kaanat alkhaamisatu ilaa laga gaarow dhahay bisha inti ay ka dhinaato 5 ay ka harto xataa kaanat alkhaamisatu waxaa weeye bishii markaan waxaa weeye waxaa ka haray markaasi khaamisadu waxaa weeye waa markii markaasi 26 27 saas weeye ilaa markaasi intaas laga gaaro qaama binaa nabigu calayhi salaam markaas waa nala kacay xataa dahaba shadru leyli ilaa habeenkii markaasi nuskiisa uu ka tago habeenka markii 2 loo qaybiya nuskiisa ayuu salaadana dushinayay hadda xadiiskan oo abudar waxa uu tilmaamayaa marka ugu horeysa salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka masjidka uu kusoo dukanayay inay tahay bisha 10 ugu dambeeyay ay tahay sababtoo ah waxa uu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii aanu la soonnay wax qiyaamu leyla nalama samaynin ilaa markaasi bisha 7 ay ka harto oo marka bisha 7 markay ka harto waxaa weeye 23 waaye 23 24 intaas ayaa markaasuu nabiguna dushiyey 25 markii la gaarayne rasuulku calayhi salaatu wasalaam nama dushinow dhah marka 20 iyo markaasi 6 markay gaartay ayuu hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam nala kacay marka hadda waxaa weeye 2 habeen xiriir waaye habeenna gooni waaye 2 habeen xiriir waaye waa habeenka markaasi waxaa weeye 23 iyo markaasi waxaa weeye ayay noqonaysaa 23 23 ayuu nabiguna dushow dhahay calayhi salaatu wasalaam marka aan kala saarno 23 ayuuna dushow dhahay habeenkii markaasi oy bishu aheedo markaasi 24 markaas nama dushin rasuulku calayhi salaatu wasalaam
habeenkii markaasi ay noqotay 25 ayuuna dushiyey. marka haddaan ku celinno 23 nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta waa la dukaday, 24 lama dukanin, 25 ayuu la dukaday. intaas markay dhacday wuxuu dhahay abu dar, waxaan dhahay yaa rasuulallaahi low nafaltanaa qiyaama haadihi leylati, habeenkan haddaad maaragtay salaad adna dushi laheeday, oo waxaa weeye waxuuba ka wadaa waxaanu jecelnahay inta bisha ka dhimanba inaad markaas salaadda saas noo dushisho aan jeclaalahay oo salaadda aan kula dukanno habeenkan markaasi hadda laga bilaabo. markaas rasuulku waxau dhahay yuu yihi ina arajula idaa sallaa maca alimaami, ninku waxaa weeye imaamka hadduu la dukado xataa yansarifa intii uu ka gadoomaayo xusiba lahu qiyaamu leylati, waxaa loo xisaabayaa habeenkaas isagoo qiyaamuleyl sameeyey. macnaha waxaa laga wadaa salaada oo waxaa weeye cishaha haddii uu jamaaco imaamka kula dukado waxay ka dhigan tahay isagoo habeenkaas qiyaamuleyl sameeyey, sida axaadiisa bacdiga soo aroortay. waxau dhahay markaasi falamaa kaanat iraabicatu, markii waxaa weeye habeenkii afaraad la gaaray, waxaa weeye waa habeenka markaasi bisha ay tahay 26 lam yaqum nabigu calayhi salaatu wasalaam salaad uma kicin. falamaa kaanat الثaalisatu, haddii la gaaray habeenkii saddexaad, waxaa laga wadaa markay 27 ay tahay weye. falamaa kaanat الثaalisatudan waxaa weeye markay bishi markaasi 27 ay gaarto oo 3 ay ka dhimanta, waa markay ku dhammaahayso 30 ay ku dhammaahayso. jamaca ahlahu wa nisaa'ahu wannaasa, rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahalkiisi iyo haweenkiisi iyo dadki ayuu kulmiyey. faqaama binaa, markaas ayuuna dushiyey oo salaaddii ayuu noola kacay xataa khashiinaa intii aanu ka cabsanno an tafuutana alfalaaxu, saxuurtu inay naga tagto, inta aanu ka baqno ama saxuurtu idinka tagtaa aan iska dhahno. waa marka bisha markay 27 ay tagtay waayo. markaas raawigi ka warinayay abu dar ayaa wuxuu dhahay waxaan idhi wama alfalaaxu, falaaxaasuu ka si waayey. markaas wuxuu dhahay assuxuura, saxuurta intay naga tagtay ilaan ka baqno, inta nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada uu nagula jiray. suma lam yaqum binaa baqiyata shahri, intii bishii ka harsaneeda nabigu calayhi salaatu wasalaam salaad kalena ma dushin. xadiiska isagana asxaabu sunan ayaa weriyo, waxaa weeye abu daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa'i waaye. xadiiskaa marka axaadiistii hore oo darsigeennii 15 aanu ku qaadanay waa uu shabahaa, laakiin waxna waa ugaga duwan yahoo ziyaadaad ayuu iska leeyahayo ziyaadaadkaas waxaa ka mid ah waktigaa nabigu calayhi salaatu wasalaam masjidka uu ku dukanayo asxaabta ay ku dayanayaan inay tahay markaasi bisha maaragtay 10 ugu dambaysa ay tahay. laakiin axaadiistii hore oo xadiiska abu hureyre iyo xadiis umunaa caaisha waxaa weeye oo darsigeennii 15aad ku jiray, ayagu markaasi wakti ma tilmaamaynin, laakiin inay un bisha ramadaanta keliya ayaa loogaga hadlayo. xadiiskaas markaan ka tagno waxaan soo aadaynaa marka salaatu taraawiix sida haatan ay tahay, goorta ay timiday iyo qaabka loo dukanayo. axaadiistii horena waxaanu uga soo hadalnay sida markaasi heerarka marka salaadu ay soo martay oo ay aheeda nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii iyo khilaafadii sayd abubakar sidiiq iyo sayd cumar khilaafadiisii bilowgeeda. xadiiska hadda waa noo imaanaya aan dhehaynay oo xadiisi cabdiraxmaan ay noogu imaan doontaa. waxaa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu cabdilqaari ayaa la yidhaah. xadiiskaas waxaa weeye laga wariyey cabdiraxmaan ibnu cabdilqaari, waxa uu dhahay kharajtu maca cumar bn اlkhadaab radia allaahu canhu leylata fii ramadaana ila اlmasjidi faidan annaasu awsaacun mutafariquuna yusali rajulu linafsihi wa yusali rajulu fayusalii bisalaatihi arahdu. xadiiskan waa dheer yahay. waxa uu dhahay ninkaa la yidhaahdo
cabdiraxmaan ibnu cabdilqaari waxau dhahay sayd cumar ayaan raacay ayuu dhahay oo aan la baxay habeen ayaan la baxayoon gurigiisa ka raacay oo ramadaan ay tahay waxaana u raacay masjidka ayaan u raacay masjidkii markaan tagnay fa idan annaasu awsaacun dadku waxaa weeye u dhahay markaasi waa dad markaasi waxaa weeye jamaacooyin ah oo koox koox ayaa loo joogaa masjidka koox kooxaa loola joogaa ayaa loo joogaa oo la ysaga cibaadaysanayaa salaadaa la yska dukanayaa laakiin dad markaasi iswada raacsan ma ahan mutafariquuna waa dad kala tagsan ayuu dhahay yusalli rajulu linafsihi nin waxaad arkaysaa haw dhahay keligiis iska dukanaya naftiisa iskaga dukanaya wa yusalli rajulu fa yusallii bisalaati aradu nin ayaa dukanaya waxaa ku xiranaya oo la dukanaya jamac ayaa la dukanaya koox ayaa markaasaa la dukanaysa rahdigu waxaa weeye markaasi maa duuna alcasharati yaa la yidhaah min arijaali wixii markaasi 10 ka yar oo raga ayaa la yidhaah ama laga bilaabo 3 ilaa 10 laga gaaro oo raga ayaa la yidhaah ayaa rahdiga la dhahaa nimaa marka intaas ay la dukanaysaa arrintaas markay dhacday sayd cumarna masjidku uu tegey dadku uu fiirfiiriyey faqaala cumaru sayd cumar markaas wuxuu dhahay inii araa low jamactu haaulaa'i calaa qaari'in waaxidin lakaana amsala waxau dhahay sayd cumar anugu waxaan ra'yeynayaa oon arkayaa haddii aan kulmiyo dadkan kala tagsan oo ninba hortiisa u dukanayo oo aan markaas salaaddii isku xiranaynin waxaan jeclaa lahay buu dhahay oo aan ra'yigaygu ou yahay inaan dadkan hal qaari aan ku kulmiyo hal qof markaas ou imaam u noqdo sida maaragtay salaada faralka oo kale inaan waxaa weeye salaadan hal imaama aan u sameeyo hal imaama inaan u sameeyo sidaasaan ra'yeynayaa lakaana amhal sidaas ayaa fiicnaa laheedou dhah sidii markuu dhahay waa uu ka dhabeeyey horay ayuu markaasuu go-aankii ka gaaray markaasuu dhahay sidaa markuu yidhi arrintiiba horeu ka fuliyey suma cazama fa jamacahum calaa ubay ibnu kacab arrintii waa u qasday waa go-aansaday dadkii ayuu aruuriyey markaasuu imaam wax ugaga dhigay saxaabiga la yidhaha ubay ibnu kacab oo qaari weyn ahay oo qur-aanka xaafidku ahay halkaas imaam samaystow dhah sidaas markay dhacday oo dadkii la isku leexiyey masjidka waa ka soo tegay sayd cumar dadkina salaaddii waxaa weeye waxaa imaam u ah maaragtay ubay ibnu kacab habeenkaas saasay noqotay suma kharajtu macahu leylatan ukhraa waxau dhahay haddana habeen kale ayaan soo raacay ninkaanu sayd cumar ayuu khaadumkiisa ahay habeen kalaan soo raacu dhahay wannaasu yusalluuna bisalaati qaari'ihim ayadoo dadkii qaarigoodii imaamkii loo sameeyey ay salaaddii ay ku xirteen oy la dukanayaan lama rabo markaasi waxaa weeye khilaafka iyo kala tagga wax foolxumaa weeye taas in wixii markaasi waxaa weeye saas laga dhigo annagana maanta waxaa naga go-an dadkii muslimiinta ahayoo naga horreeyo salafu saalix saxaabadii iyo dadkii waaweynaa ajilada taabiciinti inaan maaragtay manhajkoodii aan qaadno ayaa maaragtay naga go-an inaan hadda waktiga kan khilaaf aan abuurno weliba sida hadda axaadiista waaweyn iyo taariikhda islaamka iyo la soo aroortay arrintan markii sayd cumar uu arrintaas go-aansaday asxaabta dhammaanteed ayuu kulmiyey oo ajilada ayuu kulmiyey arrintaas waa kala tashaday waa la isku raacay waxay noqotay ijmaac weeye salaada taraawiixda sida haatan lagu dukanayo waa ijmaacu saxaaba nin khilaafa ma jirin hadda iyadoo sayd cumar cidna waktigaas aysan khilaafin hadda qofkii khilaaf ka taagaya waa qof maaragtay qariban weeye waa qof ma la dhihi karo waa qaldan yahay arrintaas waxaa weeye muslimiinta dhibaatay u keenaysaa waad aragteen hadda xarameynka salaaddii sayd cumar sidii uu jideeyey ayaa looga dukadaa salaatu taraawiix caalamka islaamka badankiisna sidaas weeye marka waxyaabo kale in la baarbaaro maxaa yeela hadda waa ku tegi doonaa xadiiska caaisha waa ku tegi doonaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam
ramadaan iyo keyrkiisba rasuulka calayhi salaatu wasalaam 11 ragcadood kama siyaadin waa imaan doontaa laakiin hadda waxa weeye taasu markaasi siyaadadatan wax ka hor ibaahaya maaha maxaa yeelay hadda sayidina cumar ibn khadaab rasuulka asagaa nooga aqoon badnaay rasuulkana asagaa tatadbuci jiray arrintaasna waa ogaay xaaladda nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadii oo ramadaankane oo salaati qiyaamu ramadaan ah sida nabiga calayhi salaatu wasalaam loola dukaday waanu soo marnay ayadoon hadda markaas cadad iyo wax gooniya aan la sheegin marka hadda sayd cumar markuu saas yidhi go-aankaas uu gaaray asxaabtou kulmiyey waa lagu ijmaacay marka dadkii markaas wuxuu dhahay yuu yihi sayd cumar waa yimiday iyadoo dadkii qaarigooda ay ku wada daydeen markaasuu cumar waxau dhahay nicma albidcatu haadihi bidco ayaa nicmo leh dhahay midaan ayaa nicmo leh macnaha bidcadu sideedaba bidco kasta ma xuma bidca sayi-a iyo bidca xasanay kala tahay culamo badan oo aimada waaweyna ayaa takriiriyeen imaamuna shaafici soo u takriiriya aimo badan say uga hadleen waxyaabaha maaragtay wixiiba markaasi shareecada asalkeeda markaasi wanaag loogaga helaayo waktigaayo aysan jirine shay faxasanuna le waa shay wanaagsanoo musaxsana ee la dhihi maayo bidco la dhihi maayo bidco marka waa haddii la yiraa xataa bidco oo qabiixo ah oo tii markaasi maaragtay bidcada dalaalada ah oo markaasi naarta lagu gela nabigu sheega ma ahan calayhi salaatu wasalaam midda uu sheega maaha ee waxay noqonaysaa bidca xasana wax badan oo bidca xasana ayaana maanta muslimiinta ay ku dhaqmayaan marka hadda sayidina cumar bin khadaab waxa uu dhahay nicmat albidcatu haadihi ayuu dhahay bidca ay nicma albidcatu haadihi ayuu dhahay bidca ayaa nicmo leh midaanaa nicmo leh macnaha salaadooda oo waxa weeye imaam waaxide ay ku dukanayaan bidcowna ku magacaabay liannahaa lam takun daa'imatan waxa weeye wax markaasi daa'imahoo jiri jira ma ahayn haddana waxa weeye markaas oo imaam waaxida wax soo jiri jiray imaam waaxida salaadaas in maaragtay lagu xirto ma aysan ahayn ma jiri jirin haddii hadda saas aan la dhihin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dukada dhowr habeen saan soo maray jamaaco ku dukaday oo nabigu inuu jamaaco ku dukada axaadiis aanu soo marnay ayaa noo cadaynaysa laakiin hadda waxau ka wadaa imaam waaxida oo markaasi oon cid kaloo meel kale aadaysa aysan jirin ma jiri jirin oo ka wadaa marka waxay noqonaysaa bidca xasana maxaa yeele nicmo ku sheegay nicmat albidcatu haadii u dhah marka tan waxay ku cadaynaysaa bidcoo dhan wax la iska tuuri kara inaysan ahayn wa kulu bidcatin dalaalatun wa kulu dalaalatin fi naar xadiiska ahi maahan sidaan oo kale maaha dadaa laga yaabaa inay fahamkoodu saas uu ka noqdo maan arrintu sidaas ma ahan waa inay maaragta arrintaas waa ka duwanta sidaas markuu dhahay waa weliba yihi sayd cumar walatii yanaamuuna canhaa afdalu min alatii yaquumuuna waa u dhahay midda ay ka hurdaayaan ayaa waxay ka fadli badan tahay midaan hadda ay u kaceen oo taraawiixda macnaha wuxuu ula jeedaa aakhiru leylka midda la dukado ayaa sii fadli badan wa kaana naasu yaquumuuna awalahu dadkuna taraawiixda waad aragteenoo habeenka awalkiisaa la qumaya xadiiskaas saxiixulbukhaariga uu ku yahy imaam albukhaari yaa weri marka sayd cumar asagu xataa ma duka jirin salaada taraawiixda maxaa yeela asaga waxaa weeye da'bigiisa waxuu ahay aakhiru leylka ayuu weligiis duka jiray ilaa waqtigii nabiga calayh salatu wasalaam laakiin dadkaanu maadaama dad waktigaas waafaqi kara aysan ahayn inay markaasi intaan aysan ka lumin ayuu markaas saasuu isugu leexiyey arrintaas waa ku farxa markaasoo nicma albidcatu haadii u dhah laakiin haddii qiyaamkooda aakhiru leylka uu ahaalay kaasaa fadli badan maxaa yeele qiyaam iyo tahajuday isku noqonaysaa taas labadaasay kulansanaysaa habeenkii markaasi laga soo kaco qiyaamu leylna waa noqonaysaa tahajudna way noqonaysaa weye marka sayd cumar asagu ma dukanaa la yidhi maxaa yeele lianna caadatahu alqiyaamu fii aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa laqumay ahayd caadadiisa weye zaminkii nabiga marka maadaama nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas caadadiisa ay heeday arrintaa saasuu ka dhigtay laakiin ummadan caamatan wax markaasi ayaguna ay sameeyaan
oon mar walba aan haleeli karaynin aakhiruleylka inay kacaan ayuu markaasu sidaasu qaarigaasi u sameeyey, imaamkaasi u sameeyey. sidaasaa marka waxa weeye salaada taraawiixda ayay ku sugnaatay. sayidina cumar bin khadaabne sidaas ayuu ka dhigay, waana shay wanaagsan oo xasana weeye. sidaas ayaana ijmaac ummaddu ay ku tahay. marka taas ayaad ku ogaanaysaa qaabkan loo dukanayo inuu yahay qaab xasan oo aad iyo aad u wanaagsan uu yahay, inuu yahay markaas ijmaacu saxaaba uu yahay. marka haddii alla yidhaahdane waxaanu ku qaadan doonaa cadadka salaatu taraawiixne waxaan ku qaadan doonaa darsigeennan soo socda. laakiin hadda darsigeeni oo markaasi waxa weeye 16 intaasuu noogu egyahay. hada wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.